أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا وإن شاء الله waxaan tusinayaa sida oo loo soo geliyo midii oo u dambeeyay oldiga ahaa version-kii oo oldiga ahaa in case waxa laga yaabaa shirkad u shaqeysa ama adiga daarabtid yani ma rabtina 3.23 gan inaad isticmaashid kii horeeyay oo kii si dambeeya rabtaa inaad isticmaashid. marka waxaan aadaynaa npm-ka always waxaa la rabaa inaad eegtid page-ka ku leeyahay npm-ka package-ka anaga aan rabno inaan oldiga install gareyno. marka inta waxaa qoran in 71 version ku qoran ilaa 71 version ayay yani soo geliyeen meesha oo update ka ah ilaa kan ugu dambeeya waxa inta waxa ka arkaynaa 3.1.23 ugu dambeeyo. hadda inta taabto waxa arkaynaa versionyaal aad u badan arkaynaa. marka waxay ku xiran tahay kii rabtid ayay ku xiran tahay ayaa aadaysa laakiin anaga waxaan rabnaa in case waxa u baahanay 3.1.2 kan ayaa rabnaa oldiganiti inaan soo gelino. marka waxyaalo yar jiro oo bedel in yar oo isbedelay oo kamid ah meeshan yar oo alta ku qoran alta ku qoran iyo number ayaa la socdo. markii rabtid inaad mid oo oldiga ahay ama qadiinka ahay oo la soo dhaafay daaribna isticmaashid sidaas ayaa loo qoraa. laakiin anaga just click aan dhina wuxuu koobiyeenayaa baashan yar oo command-ka ayuu koobiyeenaa. waxaan aadaynaa terminalka ka bacdi paste aan dhihinaa. waa ogtiin ayagan waxay tilmaamaysaa install adigoo dhahdo waay bacdeen magaca oo package-ka ayuu magaciisa ayaan siinay ka bacdi ad ayaan dhahnay 3 hadda mjida 23 hadda 22 ayaan rabnaa inaan isticmaalno. marka hadda wada interaan dhahayaa 22 naqanaa 22 marka kii oo oldiga ahay ayuu galay. laakiin waxaa sameyn kartaa intaada update oldiga update install ku sameynin kii hore ku jiray remove ko waa dhigi kartaa in case haddii oo iska shakis dhaadaniyo ama isdhexgalaa haddaada dhihaysid ko remove garey yani ko waxaa remove gareysaa nano id remove garey. markaa remove gareysid ka bacdi bacdin waxaa sameysaa oldiga install garey. laakiin in case haddii oo ka cabsanaysa dhib hadda waxaan sameynayaa inaan kan ugu dambeeyo inaan update gareeyo laakiin dhib male moveband mar labaad inaa remove dhahdid even xataa remove dhahdid moveband sidaan okay waxaan dhib mu ark in case hadda aan waxaan ku dhahayaa haddaada dhib la kulantid just kii hore remove garey bacdeen kii oldiga oo hadda aan meeshaan oldiga ah la install garey saas u install garey. laakiin markii update sameynaysid moveband inaad remove gareysid ko npm aan dhihinaa update ayaan dhihinaa update aan ku qorayna because update aan sameynuna bacdeen magaca oo package-ka ayaan qoraynaa si oo ma markaan qalad aan galaa ma markaa si qalad aan qoraa wax. markii saas ku qoro waxa u baahanahay inaad enter taabto. marka hore waa nii sheegay haddaad saas ku qortiin ayaa ama dependencies-ka ma galaayo aan sheegay laakiin hadda waxay sameeyeen wax kas install ahaado ama update ahaado hadda saas ku qortid wuxuu ogaanayaa yani inuu meesha dependencies-ka ugu tala gashay because hadda aan rabo anigana oo qalad sameynin oo yani aan oo meesha aan ugu tala galay yahay oo dependencies yahay saas aan ku qoraya. laakiin haddii in case wax update sameynayso oo مثلا ku jiro dev dependencies-ka laazim waaye waa inaad saas ku qortaa. so waxaad tilmaamaysaa dependency-ga oo dev-ka ah inuu kuu galo. haddii oo ka bixi saas oo naqdid oo saas ka dhigtid waxaa laga yaabaa meel kale inuu kaa galo. marka ani just waxaan tusinayaa ama waan ii sheegayaa sida oo runta oo saxda wax loo install gareeyo ama loo update gareeyo waxaa waaye waa inaad saas dhahdaa waay ilaa in case fiiriya because markoo pressure aan igu socoto mar baa laga yaabaa inaad ismaamtiin waxyaal kale samaysiin aad confuse ku noqotiin just waxaad fiican inaad ku baratiin sida oo caadiga ahay loo update gareeyo wax oone meesha ugu talagashay hadduu yahay dependencies-ka waa inaad saas ku qortaa. haddaa rabtid meesha oo ku jiro nano id in case waxaa laga yaabaa inuu ku jiro dev dependencies ku jira waa inaad qortaa dev
okay marka hadda ahaan caadi ahaan waan ka bixinayaa so sidaaniti always wuxuu arkayaa dependencies ku arkayaa marka sidaaniti wuxuu sameynaa hadda mjida 22daaniti wuxuu noqonayaa hadda inta dhalo 23 kan ugu dambeeyo noqonayaa biidnillah insha Allah hadduu error waxyaal qalad iga galin waa kaas saas weeye marka marway inaan dheeraado oo video ku dheeraado insha Allah gobol wax kas goynaya hadda waxaan barnay sidee oo versionkii old aan soo gashanay aan soo gali karnaa sidee u update gareey karnaa haddii soo baxdo version cusub ah marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh